بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وحن كهلنا عاو إن شاء الله تعالى سورة التكوير سورة عصوبة بلا بدونا سورة واسقالي لباتن أيضا وحن كهليسا قيامها معنى يوم القيامة iyo siday u howlo badan tahay ayuu ilaahay noo sawiri doonaa subxaana wa tacaala marka waa taswiir raayic wa mukhiif lima yaxduth yowma alqiyaamati min ahwaal yushiibu alatfaal waa sawir uu ka bixin doono ilaahay subxaana wa tacaala oo aada u cajiib badan oo aada u cabsi badan sawirkaas oo xambaarsan howlaha iyo murugada iyo xaaladaha adag ee wadato maalinta yowmal qiyaamuhu taasoo ciro kasoo saareysa caruurta marka ilaah wuxuu ku bilaabay subxaana wa tacaala qoraxda macnaha koonkan quruxda badan ee nidaamsan siduu isku bedeli doono marka suurta la afuufo ee qiyaamuhu dhaco bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay wuxuu yihi idaa shamsu kuwirat marka qiyaamuhu dhaco qoraxdu way madoobaan doontaa iftiinka ayaa ka tegaya way madoobaanaysaa mugdi bay noqonaysaa qoraxdaa dhan aad aragtaane kulul ee adduunka qorxisa ee iftiimisa mugdi bay noqonaysaa dhuxul madow ilaah wuxu uhi waida nujuumu inkadarat waida nujuumu inkadarat marka xidiguhuna ay madoobaadaan iyaguna iftiinku ka tago intay mugdi noqdaan ay weliba soo daadanayaan way soo burburayaan iyagoo mugdiga sida cabdillahi bn cabaas uu ku fasiray radia allahu tacala canhu ilaah wuxu uhi subxaana wa tacaala qiyaamuhu markuu dhaco waa marka waida aljibaalu buurihii aada aragtay ee waaweynaa aad taqaanay ayaa suyirad iska dhaqaaqi doona intay budo noqdaan sida ciidda ayay shumayaan way dhaqaaqayaan buuraha aad aragteen ee waaweyn ee qaarkood dhagaxaanta ka samaysan yihin suyirad habaa-an manhuura waxay noqonayaan ciidda ilaah wuxu uhi subxaana wa tacaala waida alcishaaru qiyaamuhu markuu dhaco waa marka geeli macnaha foosha ahaa neefkii geelaha hashii geel ahayd ee foosha ahayd ee xaamilada ahayd ee dadku ugu jeclaa ayaa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala cudilat ayaa laga dhaqaajinaya laga tegaya neefkii geel ahaa hashii geel ahayd ee xaamilada ahayd ee la sugayay in lagu intifaaco oo la listo oo macnaha laga fooliyo ayaa waxaad arkaysaa ninkii lahaa hashi oo iskaga dhaqaajinaya saasuu leeyahy ilaahay subxaana wa tacaala markaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu geela usoo qaatay ama hasha foosha ah ee xaamilada ah wuxuu usoo qaatay waa min afdali alamwaal wa axabihaa cinda alcarab carabta waa xoolahay tay ugu jeclaayeen laakiin waa tusaaluna wax laga wadaa adduunka oo dhan ayuu qofku ka dhaqaajinaya markuu arka qiyaamihii oo dhaca gaarigii ugu fiicna aada haysatay waad ka dhaqaajinaysaa gurigii ugu quruxda badna aad ku jirtay ayaad ka dhaqaajinaysaa dahabkii iyo dheemankii agtaada yaalaad haysatay ayaad ka dhaqaajinaysaa marka waa tusaalun buu ilaaha soo qaatay subxaana wa tacaala ee waxa weeyaan ujeedadu adduunka oo dhan ayaan qiimo lahayn mar hadduu qiyaamuhu dhaco idaa qaamat alqiyaama laa qiimata lidunya adduunyo qiimo ma leh iyo amwaal iyo xoola waida alwuxuushu xushirat ilah wuxu uhi subxana wa tacaala marka qiyaamuhu dhaco waxaa lasoo xaadirin doonaa lasoo ururin doonaa habardugaagii oo dhan xayawaankii oo idil libaax maroodi
habardugaag oo dhan buu ilaahay leeyahay subxaana watacaala qiyaamaha la keenaya macal kuwoogii dhintay naftaa lagu soo celinaya subxaana watacaala wax is cunayaana ma jira de libaax waxba ma cunayo markaas ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala waida albixaaru markaad aragto badihii qiyaamuhu dhac waxaad arki doontaa badihii oo sujirat ololaya biyihii aad aragtay badaha iyo badihii dhamaadogeedii waaweynaa biyuhu ka buuxeen oo qiiq iyo olol uu ka baxayaad arki doontaa baduhuna waxay u ololayaan dhulkan aynu aragno hoostooda waxaa mara webiyaal daba oo dheeman iyo macdan iyo olol iyo ayaa dhex mara dhulkan aad aragteen hoostiisa markaa dhulkaa dildilaaci doona oo qarqarxi doona sidan aad aragteen burkaanadu markay qarxaan fookaanuhu qarxoo kale waa idinka arkay dabka iyo ololka waa idinka arkay shumaya markaa dhulku markuu qarxo uu qarqarxo oo uu ololka iyo dabku banaanka usoo baxo biyahan badda waxay isku bedelayaan uumi markaa biyaha badda way ka dhammaanayaan waana isku wada furmayaan badu hal bad bay noqonayaan baxran waaxid markaa saasay ku ololaya ilaah wuxu uhi subxaana watacaala waida nufuusu zuwijat marka nafta dib loogu soo celiyo jirhkeedii marka nafihii dib loogu celiyo ruuxdii dib loogu celiyo jirhkii oo jirhkii dib loo soo nooleeyo naf kaste qof kastoo ay naftu ka baxadoo dhintay siduu doonaya ha u dhintee naftiisii dib baa loogu soo celinayo jirhkiisiina dib buu ilaah usoo nooleynaya subxaana watacaala zawijat way israadsanayaan ruux kaste naf kaste iyo jirhkeeda way israadsanayaan culamada qaarna waxay ku fasireen waida nufuus zawijat marka laysku sooco qolo kastaba wixii intii isku midkaa dhinac laysku mariyo muuminiinta dhinacbaa laysku marinayaa munaafiqiinta dhinac mushrikiinta dhinac mujrimiinta dhinac dhaalimiinta dhinac zawijat waa laysku soocayaa buu ilaahay leeyahy subxaana watacaala waxaa kaloo ayadda ka fahmaynaa inaanay naftu dhiman ama ruuxdu dhiman oy nooshahay laakiin waxaan dhimanayaa waa jirhka oo ruuxdii laga saaray jirhku ma baaba-ay waida almaw-uudatu su-ilat ilaah wuxuu uhi marka naftii la dilay ee la xabaalmaroodiyey iyadoo nool su-ilat la weydiiyo maalinta yowma alqiyaamaha biayi dambin maxaad galabsatay oo qutilat lagugu dilay oo nafta lagaaga qaaday saasaa la weydiinaya maxaad galabsatay maadaa dembi lahaa mise xaqdarra lagugu dilay iyo gardarro saasaa la weydiinaya marka berigii hore carabtu hablaha si xun bay ula dhaqmi jireen markay inaan igu dhalato si qur-aanku sheegay wuu murugoon jiray ninku wejigiisa isbedeli jiray golihii fadhiga odayaasha ayuu ka xishoon jiray inuu tago uu aado marka waxay ku kalifi jirtay taasi jaahilnimo iyo cawaannimo awgeed waxay ku kalifi jirtay inuu gabadhii aasabo xabaasha u qodo iyadoona u digo marka laba arrimood bay u dili jireen imaa lifaqrin iyagoo faqri ka cabsanaya maadaama habluhu qarash badan yihiin oo qarashka geli doona iyo waxaa ka cabsanayo ama sidaa jaahilnimadaas isagoo ka cabsanaya in lagu caayo lagu soo qur-aanku sheegay oo lagu dacayadayo marka islaamku markuu yimi waxaasoo dhan meeshuu ka saaray gabadhii wuu karaameeyey dumarkii karaamuu siiyey xaq buu siiyey xuquuq buu siiyey wuu qadariyey meel saru saaray mansab sare ayuu saaray oo inay la mid yihiin labka oo aanay waxba kaga duwanin biayi dambin qutilat marka saasay u dili jireen marka waa la isweydiinayaa naf kastoo xaqdarre lagu dilayna dee waa lagu weydiinayaa sababtaad ku dishay biayi dambin qutilat maxaad u sheegatay oo nafta u dhaafisa waxaa cajiib badan sheekhii weynaaye la odhan jiray ibn carabi marka aayadaha hore u fasirayo hab kaloo ka duwan habkan ay culimmadu u fasiraan ayuu ku fasiraya oo ruuxda ah idaa shamsi ku wirat ruuxda bani aadamku markay dantabu ku leeyahy waida nujuumu kadarat dareenkiisiina iftiinkii dareenkiisuna uu meesha ka baxo waida aljibaalu suyirat xubnihiisana ay qalalaan ay shaqeyn waayaan marka waxyaaba noocaas ku fasiraya waana tafsiir aada u cajiib badan wuxuu ka mid yahay tafsiir ibn carabi
تفاسيرتان آد كولا يابينتين أخرني ماها ابن العربي ماها كوتا ألف واللام وابن عربي النكرة لا يقنع علمه إلى وحده سبحانه وتعالى وإذا الصحف نشرت مركا لصو ururiyo suxuftii iyo dawaawiintii iyo waraaqihii ay ku qornaayeen qof kastoo bani aadam wuxuu sameeyey nushirat loo qaybiyo qof kasta faylashiisa wax lumayaa ma jiraan wax kastoo samaysa maalintii aad qaan gaadhay laga soo bilaabo ilaa marka qiyaamuhu dhacay waa laguu diiwaangeliyay markaa qof kasta faylkiisii ilaahay subxaana watacaala wuu horkeeni doono waidaa suxufu nushirat marka suxuftii la qaybiyo iyo faylashii bani aadamka loo qaybiyo oo qof kasta camalkiisa uu akhristo wuxuu sameynayay ilaa maalintuu qaan gaadhay loo bilaabay qoraalka wuxuu sameeyey xabad xabad taana ha la yaabina hadda waad aragteen oo dee combyuutar baa waxba lagu diiwaangeliya oo idinka arkay database baa jiro oo qof kasta dee combyuutarka wax walba lagu qoro ilaahay subxaana watacaala de maxaad u malaynaysaa khaaliq alkhalqi walkown wax walba way u qoran yihin لا وحده وإذا السماء مركز سمادنا كشطت لاللابو وسمادنا يبابعضو سمادا دركتين اللسان بدون عمد ترونها ووحتير يانو هينين وأنت يوم القيامة إلهي السمادا نو بابينا ويبابا يسا وإذا الجحيم نارتي جحيمنا سعرت والا الشضية جحيمة مركز الله سواك حانية جحيمة برزت وإذا الجحيم برزت بنان كالكيني وإذا الجنة إلى وحدة جنة أزلفت ولا سود وينيا قربت جنة ولا سود وينيا ضدك مؤمنين تا مركاسي فرحيا وضدك واتاسوا الكلبحيا فريق في الجنة وفريق في السعير كوحنا جنة جلسة في مقعد صدق عند مليك مقتدر إله أكتس سبحانه وتعالى يا قوب بركيسا وقرح بدن لو قد يارنا قلنا إلى الجحيم والنار السعيد سعير نارتي سعيري جحيم أيا لغو أرورين دونا مركا إلى وحلي سبحانه وتعالى علمت وحي أغان دونتا نفس كستابا ما أحضرت ما عملت وحي صوشا قيست نفكستا وحي حقيقي سن دونتا وكبالي دونا عمل كي صوشا قيستي إيا أبال مرينتي لسيي أبال كي روح نقضي أي حقيقي سن دونتا وح مران كينا إيا وح جافتر كينا يمتر waayo feelkaagii waxaa soo shaqaysatoo dhan waad xasuusanaysaa qof kasta uu akhrisanayo wallahu subxaanahu watacaala aclam waxkam wabillahi tacaala tawfiiq